subax isniina taariikhduna ay ku aastaysan tahay 26 bisha 12 ee November sanadka 2017 subaxan waxaa noo waramaya maxamed axmed tuuriyare. oo mahadsan tahay cabdiqani cabdullaahi. subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada warkii oo dhan. weerar toos ah iyo qaraxyo dhimasho iyo dhaawac badan geystay ayaa lagu soo warramayaa in saaka lagu qaaday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. weerarkan waxaa lagu qaaday xarun uu Gaalkacyo ku lahaa wadaad caan ah, halkaas oo maalmihii u dambeeyeyba wadaadku uu dhallinyarada ku baraarujinayay in ay qaadaan nebi ammaan qoobka ciyaar lagu daray. wariyaha idaacadda kulmiye ee jooga magaalada Gaalkacyo Liban Cajiib Xaaji ayaa ka warramaya. waa mahadsantahay cabdiqani. saakii saacad markay ku beegneed 5:30 daqiiqo ee subaxnimo ayaa weerar isugu jira qaraxyo iyo rag hubeysan waxaa lagu qaaday hoyga uu magaalada Gaalkacyo ka degnaa Sheekh Cali Cilmi Yare oo ka mid ahaa culimada sida weyn lagu yaqiinay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, isla markaana ay si weyn fikirkiisa ay uga soo jeedeen qaar ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed iyo kuwa ku nool magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. waxaana weerarka ama gaariga lagu dhuftay hoygii ka degnaa magaalada Gaalkacyo, taasoo sababtay in guud ahaan uu burburo hoygii uu ku lahaa magaalada Gaalkacyo iyo xaruntii uu ku shaqayn jiray. waxaana markaasi kadib rag huweysan ay gudaha u galeen guriga uu ka degnaa, halkaasi oo ay toogteen xertiisii ay ku sugnay gudaha xarunta sheekh cabdiweli magaalada Gaalkacyo. waxaana weerarkii koowaad sida la sheegay la xaqiijiyay Sheekh Cabdiweli Sheekh Cali Cilmi Yare oo ahaa wadaadka xertaasi, isla markaana ka mid ahaa culimada sida magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug. waxaana intaasi kadib weerar toos ah uu ka bilowday gudaha xarunta, waxaana goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa danab iyo kuwa maamulka Galmudug, kuwaasi oo ilaa hadda dagaal ka dhex wada gudaha xarunta Sheekh Cabdiweli. waxaana la sheegayaa inay gudaha ay ku jiraan rag huweysan oo ilaa hadda aan la aqoon. waxaana saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka Galmudug oo goobta ku sugan la hadla waxay sheegeen in weli howlgalku uu socdo, isla markaana gudaha ay ku jiraan rag huweysan oo ilaa hadda aan la garanaynin, isla markaana loo maleynayo raggii saakii weerarka ku soo qaaday. marka dhimashada hadda inta la xaqiijiyey ilaa 15 qofood ayaa la xaqiijiyey. dhaawacyo kala duwan ayaa dadka soo gaaray, waxaana guud ahaan burburay gurigii kaaga dhawaa xaruntii uu lahaa Sheekh Cabdiweli oo ka mid ahaa culimada ku yaala magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. tirada marka ragga gudaha u galay xarunta la weeraray ma la shaaciyay ama wax xogama ka haysaa Liban? waa mahadsantahay. qaar ka mid ah saraakiisha Galmudug oo aan la hadlo waxay sheegeen in ilaa 3 ka mid ah raggii weerarka qaaday ay gudaha ay galeen, isla markaana qaarkood hadda sida la sheegay la toogtay, oo saraakiishu ay sheegeen in weli rag ay ku jiraan, isla markaana weli xabad ay ka socoto hoygii ka degnaa magaalada Gaalkacyo. allah u naxariistay Sheekh Cabdiweli Sheekh Cali Cilmi Yare oo ka mid ahaa culimada sida weyn lagu yaqiinay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. marka goobta waxaa soo gaaray ciidamo fara badan oo qaraxa hore kadib iyo weerarka ay ragga sida tooska ugu galeen gudaha xarunta. ma jira qarax kale oo magaalada Gaalkacyo ka dhacay sida wararka qaar ay sheegayaan? waa mahadsantahay. ilaa xog ogaala oo ku sugan gudaha magaalada waxay sheegeen in gaari nooha uu ku qarxay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug dhinaca galbeedka. waxaana la sheegayaa in 2 qofood ay halkaasi ay ku geeriyoodeen. waxaana la sheegayaa in gaarigaasi ilaa haddaan la ogeyn cidda gatay, balse mar qura la arkay uurada qarax. Liban Cajiib Xaaji ayuu ahaa oo ka warramayay weerarka saaka ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. al-shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda weerarkuna waxa ay sheegeen in ay ciidamadoodu dileen Cabdiweli Cali Cilmi Yare oo ay sheegeen inuu ahaa ninkii nabinimada sheegtay. sidoo kale al-shabaab waxa ay sheegeen in ay halkaas ku dileen 11 askari oo wadaadka ilaalo u ahaa.